aamin inaad like saaratid gambaleel kana furatid like waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin adigana wax dhiba kuma hayso YouTube kanana subscribe saara gambaleel kana furo kuma hasanid انت فين odanay adduunka ugu jeceshahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa xalay qoryoolay ka dhacday geeri xanuun badan waxa dhimatay walaashiin hodan cabdullaahi cumar oo maalmo ka hor idin soo weydiisatay ducada waxay ka hadashay xanuunkeedii iyo dhibtii iyo rafaadkii soo maray iyadoo dardaarankii u dambeeyayna ku qoratay boggeeda Facebook hadda waxaan idiin soo gudbin doonaa dardaarankii u dambeeyay ay soo dhigtay boggeeda Facebook iyadoo dad badani ay aad uga falceliyeen dardaarankaasi iyagoo duceeyay gabadhani haddaba maxay tahay dardaarankii ay hodan cabdullaahi cumar maalmo ka hor ku qortay boggeeda Facebook inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaa magaalada qoryoolay ka dhacday geeri xanuun badan waxaa dhimatay walaashiin hodan cabdullaahi cumar oo maalmo ka hor idin soo weydiisay ducada run ahaantii markay dad fara badan ay arkeen way qarracmeen geerida fariinteedii ugu dambeysay ka hor inta aysan dhiman ayay qortay waxayna tiri iyadoo ku qortay boggeeda Facebook fariin dhiilo geeri xambaarsan oo idinkaga timi walaashiin hodan cabdullaahi cumar maalmo yar ayaa noolaan doonaa kadib waxaan rajaynayaa in aan rabbigay aan la kulmi doono cudurkaygu dhacay ma aha mid aan la sii noolaan doono waxaan idinka baryayaa ducadiinna oo ah in aan caafimaad degdeg ah ku helo amaad allaah ii weydiiso naxariis markaad maqasho dhimashadayda dhaqaatiirtu waxay igu wargeliyeen isbuuc keliya in aan noolaan doono laakiin dhimashada iyo noloshada gacanta rabbigay ayay ku jirtaa waa laga yaabaa inaan dhinto ama aan noolaado markaad ducadiinna aad ii soo badisaan haddii aan geeriyoodo isbuucaas kadib keligay ayaa qabri u hoyan doona carrada hoosteeda ama ciidda hoosteeda ee ilaahay ayaan kugu dhaariyee markii ay ku soo gaadho khabarka ama warka geeridayda ii soo ducay oo ku faafay inta guud aad ku jirto fariintan hadday ku soo gaadho gabadhan ayaa waxaa lagu magacaabaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya hodan cabdullaahi cumar waxaa ku dhacay xanuunka halista ee kansarka dhakhaatiirtu waxay u sheegeen inay isbuuc keliya ay noolaan doonto balse maanta ayay ku geeriyootay degmada qoryooley ee gobolka hiiraan inna lilaahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo shalay waxay naga baryaysay in ilaahay uu caafimaad taamo ilaahay siiyo xanuunkan halistana ilaahay uu ka dulqaado dhakhaatiirtu waxay u sheegeen in isbuuc keliya ay noolaanayso teedii ayaa timi maanta balse dardaarankii ay Facebook ku qortay ayaa qof kasta oo Soomaali ah oo islaam ah xujo ku ah waxayna ka codsatay in qof kasta oo khabarkayga geeridu u gaaro inuu ii soo duceeyo in ilaahay naxariista janno ilaahay iga waraabiyo su'aalaha qabrigana ilaahay ii fudaydiyo haddaba daawade waa bil Ramadaan waa bil barakaysan oo ducooyinka la aqbalo waxaa la gelayaa 10kii dambe ee bisha barakaysan ee Ramadaan fadlan aan wada ducayno in ilaahay naxariista janno ka waraabiyo ilaahayna qalbiga u qaboojiyo qoyskii iyo heladii ay ka geeriyootay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun